adduunku sidee ayuu noqon lahaa haddii carruurta maamulka loo dhiibo? Bal wax yar suurayso adduunkeena oo ay ka talinayaan dhalinyaro iyo carruur. Maxaa kuu sawirmay? Dunidu sidee bay ahaan lahayd haddii ay maamulaan dhalinyaro? Haddaba hal shirkad ayaa arrintan tijaabisay si ay u ogaato maxsuulka. Shirkadda bixisa tamarta la cusboonaysiin karo ee dalka UK ee la yiraahdo Good Energy ayaa u magacowday 6 dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17 inay fadhiistaan oo ay sameeyaan talo bixin cusub sida ay wax u arkaan. Qof weyn looma ogoleyn inuu ka qayb qaato fadhigooda. Guddigan mustaqbalka wanaagsan leh ayaa qabanayay shirar joogto ah halkaas oo xubnahooda ay fursad u helayeen inay fikrado u soo bandhigaan madaxda fulinta ee shirkadaasi iyo madaxda kale su'aalana ka weydiiyaan go'aamada ganacsigooda. mid ka mid ah xubnaha guddigu waa Shayna, waa 14 jir ku nool London. Waxay aad u jeceshahay deegaanka, waxayna rabtaa inay adduunkeeda u ilaaliso jiilalka mustaqbalka soo aadan. Shayna ayaa waxay tiri, waxay la tahay in dadka waaweyn ay marka hore waxa kaliya ay ka fikiraan tahay lacagta. mar walba ma doortaan ikhtiyaarka ugu wanaagsan, laakiin dhalinyaradu waxay ku koreen adduun ay saameynta isbedelka cimiladu si cad u muuqato. Shayna ayaa intaasi ku dartay in iyada iyo 5 xubnood ee kale guddiga la talinaysa aysan ka cabsanayn inay dadka waaweyn u sheegaan waxa ay u arkaan inay khaldan yihiin. Waxa la magacaabay kadib markii in ka badan 1,000 carruurta dugsiyada sare ee England oo dhan ay galeen tartan ay soo qaban qaabiyeen dugsiyada samafalka deegaanka ee Eco Schools. Waxay ku qasbanaadeen inay qoraan 500 oo kelmadood oo shakhsi ah oo ay kaga jawaabayaan 3 su'aalood oo kala ah: maxaa kugu dhiirigelinaya inaad daryeesho meeraheena? Waa maxay xirfadaha ama khibradaha aad la imaan karto? Iyo ma haysataa hal fikrad oo ku saabsan sida shirkadda tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay wax badan uga caawin karto ilaalinta meeraha? 6 qof ee ku guuleystay waxaa lagu tilmaamay inay u hayaan mowduucan xamaasad cajiib ah, faham badanna ay ka haysteen. Jack Solly oo 13 jir ayaa sidoo kale ku jira guddiga la talinta isagoo magacaabidani helay xilli ay da'diisu ahayd 12 sano. waxa uu sheegay inuu ka faa'iideystay fursadda isagoo doonayay inuu wax ka barto ganacsiga iyo suuqa tamarta. Waxa kale oo uu rajaynayaa inuu ka faa'iideysto fursadaha ilaalinta qaar ka mid ah goobaha duurjoogta. goobahaasi waa qaali ayuu yiri Jack Solly oo haddii aynaan ilaalin markaasi ma heli doono meel aan ku noolaano. Jagooyinka guddiga la talineed ayaa ah lacag la'aan, laakiin xubnaha carruurta ayaa laga bixiyaa kharashaadkooda marka ay ka soo qayb galaan shir sanadeedka guud ee tamarta wanaagsan. 2 usbuuc ka hor shirkadda waxay bixisay kharashka si ay uga qayb galaan shirka dhalinyarada ee isbedelka cimilada ee qaramada midoobay. madaxa fulinta ee shirkadda Master Nigel oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri, waxaan rabnay inaan siino koox dhalinyaro oo kala duwan jaanis codkooda lagu maqlo xiisada ka taagan cimilada, taasi oo saameyn doonta iyaga in ka badan jiilalka waaweyn. waxayna siiyeen fikrado iyo aragtiyo cusub. Shayna iyo Jack labaduba waa qayb ka mid ah Generationka Z ama Z-, daayirta iyo carruurta dhashay bartamihii 1990-meedyadii iyo horaantii 2010kii. Generationka Z hadda waa jiilka ugu badan dunida marka loo eego daraasado badan. Mid ka mid ah warbixinada noocan ah ayaa sheegay in xubnaha Generationka Z ay hadda yihiin 2.5 milyan oo qof oo u dhiganta 32% dadweynaha adduunka. Tani waxay ka horeysaa kuwa lagu tilmaamo facil labaad ee ka horeeyay oo dhashay intii u dhaxaysay 1981 ilaa 1995 kuwaasi oo ka kooban 22%. deegaanka ayaa ah walwalka ugu weyn ee xubnaha Generationka Z sida lagu cadeeyay sahan caalami ah. waxa soo raaca shaqo la'aanta, daryeelka caafimaad iyo kan waxbarasho.